waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan salaamayaa reer commenti maadaama ay reer commenti yihiin dad aragti dheer oo fikirkooda xor u ah oo outside the box ah oo aan cidna u daba fariisan waxay analyze ku sameeyaan ama indhaynayaan ama ay ka hadlayaan waxaan rabaa inaan idin wadaago aniga heesii aan qaaday kuwoodii ugu saameynta badnaa YouTube-ka waa laga saaray waxaana ka saaray Liibaan Jaamac oo ah shakhsigii iga duubay wuxuu caan ku yahay oo hal hayskiisu yahay no one knows the secret but anigu waxaan ahay shakhsiga kaliya oo secret-ka og Liibaan Jaamac ama fikir oo isagu leeyahay heesahayga ha kaga guro YouTube-ka ama mid kale oo la soo adeegsaday ha kaga guree waxaan leeyahay Liibaan Jaamac oo heesahayga sidaad uga gurtay go'aankoodii waa inaad qaadataa kumana soo celin kartid waa digniin heesahayga dib dambe uguma soo celin kartid YouTube-ka wixii ilaahay kaaga qoray calaf oo aad ka samaysay oo aad ka cuntay heesahaas waliba waxay ahaayeen heesa anigu aan iibsaday oo fiidiyoga markaad iga duubaysa aan lacag kugu wada siiyey xaq waxaan u lahaa inaan anigu soo gashto ma aysan dhicin adigaa soo gashtay copyright-keedana adigaa haysta dhammaan heesahan qaaday heesihii ugu saameynta badnaa YouTube-ka sidaad uga gurtay bay ahaanayaan kuma soo celin kartid copyright-koodana ma sii haysan doontid waxaa jira propagandooyin tiro badan oo ay social media isla dhex qaadeen Omar wuxuu yiri baraankiiba waxaan ahaa no aniga afkayga ciidana kama maqal baraankii bay ahaayeen waxaas ama waxaas baraanki ahaa aniga storygayga cidna idima soo gudbin karto anigii baan nool anigii baa idin la hadlaya anigii baan idin hor fadhiya qof bini aadana oo aniga turjumaan ii noqon karaana ma jiro Soomaalida la khaldi karo oo lagu khaldi karo qofkii oo aamusan darteed in advantage laga qaato laga faa'iideysto oo dad kale ay yiraahdaan hebel wuxuu sheegay baraanki bay ahaayeen no waxaa jira dad badan oo aan damcaynaan xaqooda u hadlo oo dulman oo music virus lagu sameeyay oo nimca habi kamid tahay walaalay macaanay iga raali noqo hadaad i dhibsatay dib dambe kaagama soo hadlayo dib dambena xaqaaga ugama hadlayo fanaankii raali ka ah xaqiisa ama la dulmay in laga hadlana diyaar waxaan u haynan garab istaago fanaankii diyaar u ah inaan garab istaago ku garab istaago in xaqiisa hadii la duudsiyeeyo ama victim ah inaan campaign la galo diyaar baan u ahay inaan garab istaago inta markaan ka soo tago waxay jecel yihiin Soomaalidu inay qofka bini aadanka markii uu victim yahay ama dhibaato soo gaarto ay ka dhigtaan arrinkiisa jees laakiin halkan waxaan uga mahad celinayaa walaalahayga Soomaaliyeed ee reer commenti buurta dheer igala baxay mar walbana ah dadka fahansan sida wax u socdaan waxaa jira fanaaniin badan oo dhiban oo ku dhiban social media iyo music industry-ga fanaaniintaas waxay dulmanayaal u yihiin dadka lacagta ka sameeya sidaan hore idinku sheegay aniga waxa weeye la idaba joogo oo nafta Allah la igu keenayna wax kala ma waa dacayga iyo keenada aan ku suranno hogaankana ku qabanno wax Allah iyo waxaan kugu sameyn karno aan kugu sameeyno advantage aan ka qaadano waa inta there is nothing called waxyaabaha kale la sheegayo wax jira maaha anigu maahi qof loo hadli karo aniga baa hadlaya intay nafti ugu jirto I will talk adeer maahi nin u ciil qaba music iyo magac iyo sharaw waxaan ahay Omar Barbar shalay talentiga aan lahaabaan maanta leeyahay haddaan rabo waan iska deyn karaa haddaan rabo waan soo gelin wax allaaliya waxaan anigu choice ama door bidaan sameynaya laakiin waxaanan mar walba ilaaweyn oo abaal u hayaa ummadda Soomaaliyeed waan leeyahay jira oo jooga Liibaan Jaamac oo message-kan aan hawada ku soo mariyay dhayal ha u qaadanin do not put again heesahayga ku soo celin sidaad uga saartay iyo go'aankii aad qaadatay iyo raganimadeeda ku adkayso waxaan u sheegayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed YouTube-kayga aniga aad igala soconaysaan halkan baan soo dhigayaa 9 kun buu maraya idinkaana gaarsiiyay reer commentiyow beerka iyo bogaba idinka ogsooni aniga cidna igama kiin turjumayso cid aniga iiga kiin turjumaysa ma jirto halkan iyo YouTube-kayga baa waxaan anigu ka hadlayo oo aan xor u ahay inaan ka hadlo aan xaq u leeyahay inaan ka hadlo soo dhigayaa